muddo 10 cisho oo kaliyaata ah ayay waxay kula wareegtay odaygii reerka 10 maalmood oo kaliyaata iyadoo gurigooda joogtay gabadhan oo kamid ahay dadkii ka soo qaxay Ukraine ayaa waxay sabab u ahayd qoyskii soo dhaweystay kuwaas oo keenay gurigooda inay ku burburiso muddo 10 maalmood oo kaliyaata ah soo dhow daawade waanigoo ah Nadra Saciid si aad qisadan u dhamaysato nala joogilaayo dhamaadka muuqaalka gabadhan magaceedu waa Sofia da'deeduna waa 22 jir waxay kamid tahay dadkii ka soo qaxay Ukraine taasoo magangeliyo ka heshay Ingiriiska sidoo kale waxa soo dhaweystay oo gurigooda keensaday family ka koobna 4 qof 2 caruur iyo hooyadood iyo aabahood Lorna iyo Tony waxay haayeen lamaane isku qanacsan iskuna faraxsan iyagoo wada noolaa muddo 10 sano Tony iyo Lorna sanadahaas badan ay soo wada noolaayeen kadib muddo 10 cisho oo kaliyaata ah ayuu gurigooda ku burburay family-gii intaasoo sano soo dhismay Tony family-giisii 10 sano uu soo dhisay wuxuu ku burburiyay 10 cisho oo kaliyaata wuxuu iskaga tagay labadiisii caruur iyo xaaskiisii wuxuuna ka raacay gabadh ka soo qaxday Ukraine Sofia oo yaqaaneen muddo 10 maalmood oo kaliyaata ah Tony reerkiisii wuxuu ku burburiyay 10 cisho isagoo sheegay tan inay tahay jacayl wax kastaana si dhaqso ah isku bedeleen wuxuu yiri waan ogahay qof kastaaba wuu ila yaabi doonaa waxayna ugu tilmaami doonaan waali laakiin aniga iyo Sofia waxaan wada noolaan doonaa inta nolosheeda ka dhiman qof kastaaba haduu og yahay dhamaadka noloshiisa waxay ku dhamaan doonto aba qof kasta haduu ogaan lahaa qofku soo dhaweysanayo sidoo hadhow tolo noqonayo amba isku bedelayo runtii waxaan u maleynayaa adduunyada waxba ma bay xumaadeen Lorna waxay soo dhaweysatay oo gurigeeda waliba keensatay qofkii burburinayay gurigeedii 10 sano dhisnaa naagtii ninkeeda ka qaadi lahayd qisadan oo qabsatay social media taasoo labadii cisho ugu dambeysay aad loo hadalhayay sheekada waxa faafisay oo ka soo hadashay Lorna oo ah gabadhii laga qaaday ninkeeda daawada hadii aan su'aal ku weydiiyo adigoo nin ah booska Tonyna matalaya maxaad sameyn lahayd sidoo kale dumarkana waxaan weydiinayaa su'aashan hadii aad ahaan lahayd gabadhii ka soo qaxday Ukraine ee ninka la wareegtay ninkan ma ogolaan lahayd mise wadiidi lahayd adigoo ka fikiraya xaaskiisa iyo labadiisa caruura nagula wadaag fikirkaaga xagga commentiga waanigoo ah Nadra Saciid daawade wad ku mahadsantahay hadii aad nala joogtay ilaa iyo dhamaadka muuqaalkan sidoo kale like noo saar videogan nagu soo bir hadii aanad kamid ahayn asxaabta ku xiran page-kan ma tahay qof goob ganacsi leh amba internetka wax ku dhex iibiya sidoo kale macallin online-ka wax ku dhiga ma tahay qofka waadida dhulalka iyo guryahaba iibiya ma leedahay xafiis yar aad ku shaqaysato nooc kasta oo shaqadaadu ay tahay ma jeclaan lahayd ganacsigaaga inaad horumariso macaamiil fara badan ay kugu soo xidhmaan bulsho badan oo daafaha adduunka joogtana si yar oo fudud uu ku gaadho kuna bartaan adiga haddaba la jaanqaad tiknoolajiyada cusub ee adduunka taasoo ah internetka ku kobci ganacsigaaga hab online waxa ku fududeysay Daus Technology iyadoo xaysiis ku sameynaysa sidii uu bulsho badan oo daafaha adduunka joogto ganacsigaaga u gaadhi lahaa macaamiil badan ay kugu soo xidhmi lahaayeen Daus Technology waxay ka caawinaysaa in social media kugu dhex baahiso nooc kasta oo ganacsigaaga uu yahay ku xidhno Daus Technology kala xiriir WhatsApp numberka shaashada ka muuqda